بدلان 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 ويهاجتو وتا هيرك سارجرتي وحيق سرايم بلشدو باكا هانا قاضي هلقف يعدكي لغو ترتامي وهو هرقالي مانتا عيبتيو قابل لقى بحيو وانتي وياني شعبكو همون قبينو قارو هيرن كاسي عيانكيو قيدي قلرري هوي سنبود لقي عيبتيو قابل لقى بحيو وانتي وياني شعبكو همون قبينو قارو هيرن كاسي عيانكيو قيدي قلرري هوي سنبود لقي أجنديه إنه ما أنت مدن يا الوكايد الهورية لا وحنا هدي له هيد مقرشين إنها بلين استراتيجي لو طلعتني وصدق لحدي سيلا بلاوي وأنت قبيعة هيدو مقرنا ساي أنا قلت لك لما كده ملقوا أمي إن إلى الله يكون شن يلا بعتن الله يكون سجال يلا بعتن لقد يقول بس كريو وقت حلات كعادي جاه نظام كهذا أما الدولة هذا اللي طرطي يجري سو هدي له هيد مو سدوا كلنا الله جان قال استراتيجي جود إبلان إن لو صلايو وعن شعال هاي إن شركة هذه لهاي إنه قدوميه وينوفره. خيارة شربت له حسبية ده سياسة بنتلان مركز السؤال وهذا إن جودهان جود مقعدنا قاضي يسنتي وفرح صناعي ما تكين وأنا إذا كم هذا علينا إن سؤال جيبد إماتك نقدر قريب قريشان يعني كلن كان وينو ولا تشي وقرشها إني استراتيجية إن شاء الله قرشها سي وحنا نقص عيدا جهada برتلمامات كهدي لهاي ما أنه هيك سنة إنه لقى بلا وصلنا كصوص على دي لهنا قاس يشان إلى وقتك إلا يو آخر ك سجاري إلى وقتك 2025 29 إن شاء الله مركب قرشان كوي هروا كدوية كوي هروا حكوا بيس غريسان دولة خاصة يو نظام قضي وعيقولن تودي دور شو ذا يو قابك برشة بدم يو حيوان بدم بانو كقرصني حيابه خلادات كها وسكوا صحني وحيابه فائدة هانا والحمد لله يو فائدة حيان إن لسي يلا لسي بارجو ولا لسي بدي هاي لكن وحيابه أنا كدي يو قرشهاني سوا فتشن لهم برتلمامات كاسل هيك سنة ولوجا مر وقيبها كل دون بالشدة وحسب جدا يقول مرتي المدنيين تونتي برتلمامات كاسل هيك سنة كوي هراء إنه سويتش وجدي والحمد لله جدتك مرتي كسر شقي صدقني لحدي دقمه يو كان قيبي شكل الدون يو وحوك كوبي هاي أنا أسلا أرجنه مركز سدين كنا وحيد كودر إنسان وحيد كمرتي طلعوا كبير إنسان siduu noogu hagaagi lahaa oo inagoo markaa waxaan isku wada shadcadahaas dariiqul mustaqimka aan u mari lahayn insha Allah marka maadaama sagaalkii ballanteenu ahayd mar labaad idinka macalinayo ka qaybgalkiina waxaan jeclahay waqtiga inaan soo gaabiyo hadalka aanan badin waxaan ku soo dhaweynayaa hawlwadeenadii muddada runtii ka shaqeynayay qorshahan oo si fiican maartay u soo habeeyay inay presentation ka noo sameeyaan oo aanu aragno kadibna markaanu presentation ka aragno note ka qaadano kadib markaas qodob aynu u falanqayno aynu markaas hadii lahayd ma aanu dhamaystirno annagoo wada qanacsan biidillah alkariim doorki haduu nagu soo galay haddaan ka hormarnaba hadba sidaynu u dadaalno inaynu markaas ku dhamaystirno markii uu aynu waxa isku dadarno habeynana hadhowna natiijada iyo mulakhasadiisa sidii baan haddana idin socodsiinayna insha Allah hadii ilaahay idin waa mahadsantiin agaasime maxbuub ba hadda noo galay hadii Allah idin istiraatiijiyadan waxa weeye waa wadiiqadii ama wadadii uu gudigu mari lahaa oo ku shaqeyn lahaa runtii waxaana laga sameeyay oo laga alkumay shaqooyinkii aanu qabanay awal istiraatiijiyadii hore la sameyn jiray waxay ahaayeen kuwa waxa weeye garoonka laga bilaabo laakiin tan waxay ka timaaday doorashooyinka aanu qabanay
istiraatiijiyadeennii hore lessons learnedkii iyo casharadii aynu ka barannay iyo waxyaabahaas oo dhan sida la adligeed introductionka ayaanu gelaynaa intaan introductionka gelin istiraatiijiyadu waxay ka kooban tahay kow hordhac oo ah maxay istiraatiijiyadani ay inagu hagaysaa ama guiding principle-keedu waa maxay strategic issues-ka oo ah kuwa ugu muhiimsan ee laga sameeyay ciwaanada ugu waaweyn ee lagu shaqayn lahaa pillarska iyo tiirarka ay ku dhisan tahay riskiga iman kara ee dhici kara waxa weeye nusqaaminna kara shaqadeena ama operationkeena geedo socodka waxa weeye dimuqraadiyadda iyo sidii aynu u mitigate garayn lahayn intaas ay ka kooban tahay waanu soo koobnay istiraatiijiyadani waa mid guddigu samaynayo si waana guddigu mid uu ku yahay committed waana shaqadii uu ku qaban lahaa doorashooyin daahfuran oo transparency ah isla markaana integritygoodu ama daacadnimada guddigu ay ku salaysan taasoo dhammaystiraysa hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland shan sano way hadda istiraatiijiyada shan sano ka shaqayn mayno gole deegaan doorashooyin heerka ah baa ina hor yaalla taayina ma habdhaqankeeni hadda iyo farsamooyinkii hadda iyo heerka aqooneed iyo wacyigelineed hadda ay golayaasha deegaanka ku wajahay miyaa lagu aadayaa baarlamaan iyo madaxweyne lagu doorto haddana markaa u socoto marka inaga fahanteena waxaynu ka shaqaynaynaa inaan noqdaan waxaan joogin golihii deegaanka eh isla bedelaa hadba sida ay meesha loo socdo ay isu bedesho marka taasina aniga ardayda muhiimiyada tahay marka khiyaarta kalaan u daynaya iyagana insha allah aadna waa mahadsantihiin ballanteena ahayd in aad mataqaana institutionkan ama beeg guddigu uu istiraatiijiyad waqtiga muddadiisa uu keeno waa sugaynay waxaana ii muuqata presentationka qaabka loo jeediyey qodobadu inay aada u qurux badan yihiin waa arrin kaloo iyaduna ogaadin mudan insha allah tacaala inaan qaato marka waxaan mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka iyo howlgallada doorashooyinka sida quruxda badan oo wanaagsan oo maaragtay wada shaqaynta fiicana oo hawsha ay ku wadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya una hambalyeynaya shaqo fiican in lasoo qabtay oo qurux badan qorsho fiican in lasoo gudbiyey baana ka muuqatay ibsay iyo wixii laga bartay maaragtay doorashooyinkii ay soo galnay intaas haddaan warbaahinta kaga fudbo waxaana qabaa anagu ra'yiga haddaan kusoo dhawaado in ay noqdo wax furan muddo maxaa yeelay dalka reer Puntland aad bay u fara badan yihiin meelo kala duwan waa la joogaa waagii weyn waxaa muuqatay ceeb ah in maaragtay diiwaangelintu aad u yahay marka inuu waqti dheer noo furnaado xafiisyadu noo furnaadaan qofku isagoo maaragtay ama safar ama silcaal ah meeshuu soo maro iska diiwaangelin karo meeshuu markaa u fududna uu ku qoran karo inuu hadhow ka codayo marka arrintaa waxay u baahan tahay in waqti fiican la siiyo kulamo maaragtay kuwan ka dhow ama ka tegin kaarsan la isaga yimaado waxaa meesha ku cadday time dheer oo ilaa 3 sano ku cad jadwalka prestation soo registrationku wuxuu ahaa caqabada ugu weyn markii wacyigelinta laga yimaado qodobka koowaad waxa weeyaan labaad waa caqabadaha taymkuna waa yaraa elektroonika iyo waxa weeye teknolojiyadda aan haysanaa kuma fillayn qodobka labaad caqabada kale waxay ahayd oo iyada meesha lagu cadday iyadoo 7 beri la siiyey waxaa laga yaabaa dadku waxaa la dhaqato waa reer magaalka ruuxiisu waa meelo kale kala safraa in shuruud lagaga dhigay qofku meesha diiwaangelintu ka dhacayso inuu joogo bilmithal taa waxaan soo jeedinaynaa marka xisbi ahaan in diiwaangelintana haddii la dheereeyana waqtigeedu waa adkaanaysa oo waxaa ka baxaysa waxaan challenge baa ka dhalanaya challengeski wixii lagu xalin lahaa caqabadihii lagu xalin lahaa waa meesha ka baxay sababtoo ah 2025 iyo 2029 2028 bay noqon taas marka waxaan qabaa anigu in la muddeeyo horta aad 1 year aad qaadataan laga dhig wixii ka soo baxa marka halkeeda wada qodobka labaad aan soo jeedinay diiwaangelinta waxaa laga in qofka مثلا سو تشيف جوجا سو تشيف diiwaangelintiisa rabaa inuu garow iska diiwaangelin karo codaynta uu ku qoran karo soo tchief taasna inaad ka fakadaan oo qofku meeshu iska diiwaangeliyaa soo kale meeshu uu ka codayn karo ruux taas caqabad bay noqoto in dadkii la faro walaahay waxa weeye xaalad u adkaa la dareemka barnaamij fiican buu ahaa wixii uu kabisa maahan
أدبر مسؤوليننا وأنا dhiirigelinayna wixii yaryar oo hadda ka dhimanna inaad mataqaanaa iduguna dib usoo noqotaan talooyinka isbiyu soo jeedinaa qaataan barnaamijkaas barnaamij fiican buu ahaa haddee wixii uun kabisa maahane aad baan usoo dhaweynaynaa waana dhiirigelinaynaa wixii yaryar oo hadda ka dhimanna inaad mataqaanaa iduguna dib usoo noqotaan talooyinka isbiyu soo jeedinaa qaataan dhinaca xisbiyadana waxaan leeyahay guddigan waa guddi farsamo qayb baan ka mid aynu inagu soo magacawnay xukuumadda ku fadhiisa maaha taasi waxay u baahan tahay faham bay u baahan tahay wixii iyagu ay leeyihiinna waa kula xisaabtami karnaa laakiin waxayan lahayn eedeeda iyo mataqaanaa barnaamijkii soo diyaariyaan inuu la tiftirna maahan ma laha xagga registrationka حق الرجال كواحد ومش مهم سن يانتي لو خرب يا هاي تروشون كيف فدرال كان خصو دخ غلاي حتى سنه كبعدي وتاين باينه خصو دخ غلاي قبل صور سنه كان 25 كان وحي doorashada marka mid galayno kuwa inoo qaan gaarayo aan iyagu doorashada loo baahan yahay labada dhinac lagu dafo dhinacna ma taqaanaa arrintan ah dadkeena foreign ka jira boqolka 40 dadkeena banaanku runta markaa loo sheegay dadkeena puntlandka boqolka 40 banaanku inay doorashooyinka ka qayb galaan oo ay dhaqaalana way ku sii gelin wacyigelina way ku sii haddana loo ka faa'iideysano oo waliba guddiga doorashooyinka isu xaqaamo oo meelaha ay u badan yihiin haddana wada tegi Kenya Maraykanka qaar meelo ka mid Ingiriiska meelo ka mid meelahaas inta aan la tegi karo oo kala mataqaana states Minnesota kale ya ama qaab online hay iyana waxa weeye dhinac kasta dhaqaalana waxa laga yaabaa in guddigu intuu u bandhigo yiraahdo contribution waa ka baahan yahay te hawshaasna nolol fulan kan soo fudud iyaguna qayb bay ka noqon karaan arrintan la soo dhaweynaya haddaa qorshaha soo bandhigteen qorshe waxaa weeye loo baahnaa xilligeed in la qabto ama soo bandhigo aad baan u mahadcelinayaa beeg ayadoo hadda qorshihii ayadoo sanadka koowaad lagu jiro inay soo bandhigaan qorshihii lagu aadi lahaa doorashooyinkii 2019 bilowday waxay markaa qorshahan wixii hadda wax laga qaban lahaayo oo hadda wax ka bedel lahaa mayaan qorshe fadhiyo oo qeyb ku fadhiyo oo muhiim ah waa soo fadhiyo aad baan idin mahadcelinaynaa waxaa ii muuqata inay did kaleshi ugu jiro inuu wax dhaqaaqaana inaad kacaysigin xilli hadda beega eedayn karo maaha laakiin 26 marka la gaaro qorshahan quruxda badan aad u soo bandhigay haddii ay wax ka dhaqaaqi waayaan oo haddaan shiru isugu nimaano dee markaasaa beeg waxay yeelan doontaa eedeynta iyo shaqadan iyo nidaamkan iyo waxyaalaha caqabadaha ee ka socon waayeen qorshahan anaga markaa waxaan tir walaa qolada beeg waxba isugu fadhiyo shaqo fiican bay qabateen oo international community dhaqaale la helayo هذا قرشة هذا أنا صور استيان قرشة دور الشقة أما الديمقراطية لا وهذا كم مغنيس هذا واحد يشير لقاها يصير في مكان شام روح يصير في مكان ما قاعد كستو دور كل واحد دولته سبيرة بينكا يعد كستو دور كل دون رزق إن الإسلام روح قرن سيبرينا يصير في مكان qorshaha dhaqaalaha marka la helo in lagu saleeyo dhismaha constitutionada dimuqraadiga ee jira oo xisbiyada koob ka yihiin xisbiyadu inta badan waxay la daalaadhacayaan dhaqaalaha marka laga yimaado dee geeleenkii ciddii helaysa haddii gaab weyn u dhexeeyo dhuloodu waa isdhiganayaan marka dhaqaalahaas in lagu beesgareeyo haddii dowlad bixinaysa haddii cid kala bixinaysa dhismaha constitutionada
waxaan isla ognahay saaxiibada xisbi si fiican u dhisan oo xaruntiisii shaqaynayso qaamihii kala duwan inaysan jirin marka hadday xisbiyadu shaqayn lahaayaan qayb bay ka noqon lahayd in iyagu xaqooda soo dhacsadaan